shirka golaha wasiirada oo maanta khamiis ay halkan iskugu yimaadeen waxyaalihii ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ahaa warbixin laga dhageystay wasaaradda amniga qaranka ku saabsan dhammaan amniga guud ee waddanka sidoo kaleeto waxaa si buuxda oo ay golaha wasiiradu u ansixiyeen go'aankii ay dhawaan gaartay wasaaradda qorsheynta oo ahaa in hay-adaha ka howlgalo waddanka ay ku yimaadaan muddadii loo cayimay hay-ad aan ku imaaninna lagala laabto shatiga ama laysanka ay kaga shaqeyso Soomaaliya sidoo kaleeto wasaaradda arrimaha gudaha ayaa keentay istiraatiijiyadda kobcinta iyo kabashada dawladnimada istiraatiijiyadda soo kabashada iyo kobcinta dawladnimada oo loo ansixiyay dood dheer kadib waxa sidoo kaleeto golaha wasiirada ay maanta hor keentay wasaaradda maaliyadda tirakoob hantida qaranka dhammaan gobollada Soomaaliya oo dhan ay taalo wasaaradda dastuurka ayaa sidoo kaleeto warbixin keentay ku saabsan arrimaha guulaha laga gaaray dastuurka waxyaalaha loo baahan yahay in laga qabto halkaas oo aad iyo aad loo bogaadiyo prime ministerka iyo ra'iisul wasaarahana uu amray in loo fududeeyo gudiyada ka shaqeeya si wax weyn looga qabto dastuurka inahaas ayaa ugu weynaa waxyaalihii looga hadlay golaha wasiirada maanta